xildhibaan xaaji cabdikariin xuseen yuusuf cabdiwaraab oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha guurtida ee Soomaaliland oo in muddo ugu maqnaa xaalad caafimaad dalka aynu dariska nahay ee Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa ayaa dalka dib uga soo laabtay kadib markii uu soo dhameystay xildhibaan xaaji cabdikariin xuseen yuusuf cabdiwaraab oo ka mid ah xildhibaanada ugu daada weyn aqalka golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa xaaladiisa caafimaad ay tahay mid aad u wanaagsan waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa markii uu ka soo degay xildhibaanku diyaaradda siday wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland wasiiru dawladda madaxtooyada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ay u ceeday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland taliyaha laanta socdaalka ee Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo qaar ka mid ah ehelka xaaji cabdikariin xuseen cabdiwaraab iyo mas'uuliyiin kale oo si weyn u soo dhaweeyay markii uu xildhibaanku ka soo degay diyaaraddaasi xildhibaan xaaji cabdikariin xuseen cabdiwaraab oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay xaaladiisa caafimaad waxaana uu sheegay inuu aad u fiican yahay waxaanu xildhibaanku halkaasi uu salaan sharaf uga diray cid kasta oo kaalin ka qaadatay xaaladiisa caafimaad aad baan u fiicanahay waxaan ilaahay dhaqtarro wanaagsan baan ka helay magaaladii aan tagay Addis Ababa aadna waa la iigu shaqeeyay bini'aadamnimo aad baan ugu ladnaaday aad garaacii iyo xumadiba waa iga jabeen xanuunka dilaaciisii unbaa haya nabadgelyada waa ilaahay geeyey nabadgelyada waa ka yimi dadku joogayna allaha nabadgeliyo waa salaamtaa sharcigan salaamaya dhaqtaradii iyo hodeelkii iyo odayaashii iyo soo salaanta sharcigaan u diraya allaha nabadgeliyo xildhibaan xaaji cabdikariin xuseen cabdiwaraab ayaa in muddo ugu maqnaa xaalad caafimaad dalka Itoobiya Axmed Sagdaar Xasan telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.